asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aaladaha internetka iyo qalabka casriga ah majaajuus bay nagu yihiin. waa weli oo mar labaad idin leh ku soo dhowaada janaalka faa'iidayso. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo aaladaha internetka iyo sida ay nolosheenna ugu xiran tahay, iyo weliba maalinta ka dambaysa baahida aan u qabno ku xirnaanshaha internetku iyo qalabka casriga ah ay sii kordhayaan. magaca smart waxaa lagu fasiri karaa wax caqli leh oo ku fahmaya, waana qalab kasta oo internetka ku xirma sida smartphoneka ama smart deviceska loo yaqaano, nooci doonaanba ha ahaadaane. marka haddaan ogaanay in noloshu inteeda badan ay ku xiran tahay internetka, waa in aan ogaanaa wax kasta aan ku samayno internetkana in ay dad kale daawadaan ama ay daawan karaan, ay ururiyaan ama ay keedin karaan, si xunna u isticmaali karaan, hadday rabaanna ay sii gadi karaan. nin la yidhaahdo edward snowden oo ahaa nin u shaqayn jiray c i a da maraykanka, oo markii dambena ka shifay siyaabaha ay dowladda u jaajuusto dadka. ninkaas isaga ah taariikhdiisa oo dhammaystiran waxaad ka heli kartaa google-ka, isagoo mar la wareysanayo oo ka hadlaya arrimahan iyo siyaabaha ay dowladda u duubto ama ay u dhegaysato wada sheekayshiga dadka marka ay teleefonkooda isticmaalayaan, ayaa wuxuu leeyahay teleefon kasta oo smartphone ah haddii uu shidan yahay buu yidhi, wuxuu duubaa dhaqdhaqaaq kasta oo aad samaysid wuu record gareeyaa buu leeyahay. marka arrimahan waxay iska ahaan jireen arrimo iska u private oo dowladda keliya ay ogaan karto, laakiin wuxuu leeyahay sida internetka usoo caanbaxay waxay iska noqdeen wax banaanka iska yaala oo cid kasta ay heli karta ayuu noqday buu leeyahay. marka wuxuu leeyahay arrintan waxay ku dhici kartaa qof kasta oo smartphone haysta, marka qof ka badbaadaya ma laha ayuu leeyahay. haddii uu teleefonka shidan yahay waaba la gartee, hadduu dansan yahayna sidee waxyeelo kugu noqon karaa? dadka arrimahan khibradda u leh waxay sheegayaan in xataa haddii uu teleefonkaagu dansan yahay awood u leeyahay inuu wax dhegaysto, maxaa yeelay teleefonka weli waxa ku jira baterigiisii iyo dabkiisii baa ku jira. teleefonkana inta uu dab leeyahay wuxuu awood u leeyahay inuu ku maqlo, ku arko, ku dhegaysto, kuna duubo. waxay ahaan jirtay teleefonadii hore loo isticmaali jiray sida kuwa loo yaqaano philiphoneka, waxay la imaan jireen bateri gaar ah oo la geliyo, marka aad baterigaas ka saartidna waxay ahaan jirtay in teleefonka u dabla-aan noqdo. sidaad la socotaan teleefonadan cusub oo casriga ah intooda badan waxay ku yimaadaan bateri ku dhegan ayay ku yimaadaan, qaarna bateriba ma leh. marka si ay arrintan ugu suura gasho ayaa waxay sameeyeen baterigii iyo teleefonkii aan la kala saarin, si teleefonka uu mar walba online uu u noqdo. arrintan in ay teleefonada dadka dhegaystaan waa arrin la soo xaqiijiyey marar badan. waxaa jirtay maalin aniga oo la sheekaysanaya qof kale, waa weliba arrin aan sir ahayn oo arrin iska caadi ah. waxaanu soo hadal qaadnay nolosha jabaan iyo qaabka jabaan loogu noolaado. 15 daqiiqo kadib markaan qofkii kala tagnay, waxaan furay app oo teleefonkayga ku jira oo aan ka akhrisan jiray newska. beejkii ugu horreeyey aapka waxaan ku arkay xayeysiin iyo maqaalo iyo arrimo ku saabsan nolosha dalka jabaanka. weligayna qof google gareeyey ama baaray ama website ka raadiyey arrintan maanan ahayn. waxay igu horreysay maalintaas oo aan qofka kala hadlay arrintan. taas waxay daliil u tahay in teleefonkayga uu ii maqlaayay. waxaa dhici karta marka maadaama aan af soomaali ku hadlaynay, teleefonkana aan af soomaali aqoonin, in markaa teleefonka uu qabsaday ereyo gaar ah uu ka dhex maqlay sheekadii. ereyadaas gaarka uu ka dhex maqlayna uu qiyaastay inaanu ka hadlaynay nolosha jabaan. sidaas ayuuna ku fahmay. waxaan hadda ka hor meel ka akhriyey iyadoo tusaale kala ah nin iyo xaaskiisa oo leh waxaan suuqa ugu jirnay bay leeyihiin inaan gadano guri, marka guryo badan ayaan tusaale ahaan usoo qaadanay ayuu leeyahay. marka ugu dambayntii wuxuu yidhi waxaan isku afgaranay inaan guryihii mid ka mid ah aan gadano, aan iibsano. marka inaan soo eegno oo gurigii tagno ayaan isku daynay buu leeyahay. markaan go'aansanay kadib inaan gurigii gaarka ahaa aan isku afgaranay inaan iibsano, inaan aadnaan ku talagalnay. wuxuu leeyahay markaan gaarigii koray oo aan g p s ka shiday. g p s ka waa aaladda tilmaanta oo gurigii adresskiisa inta la geliyo ku geynaya meeshaad u socotay. anigii oo aan weli waxba gelin buu leeyahay waxaan ku arkay gurigii aan u soconay isla adreskiisii baa iisoo koray buu leeyahay g p s. weligayna wuxuu leeyahay ma aan aadin meeshaas, adreskaana teleefonkayga ma gelin. waxaaba iigu horreysayba markaas inaan aado halkaas waxaa ka cad in teleefonkiisa uu dhegaystay sheekada, in badanna uu la socday go-aankooda. marka qaacidadu waa mid iska fudud. teleefonku mar hadduu microphone uu leeyahay waxbuu maqlaa, hadduu camera leeyahayna waxbuu arkaa, wuuna duubaa wax kasta oo uu maqlo ama uu arko. markaa kambaniga teleefonka iska leh ama aababka teleefonkaaga ku jira wixii ay kaa duubeen, hadday markaa u baahan yihiin inay isticmaalaan inay isticmaali karaan, siday rabaanna ay ka yeeli karaan. inta badan waxay kasii iibiyaan, kasii gadaan kambaniyaal kale oo iyagu markaa dan kaa leh inay wax kaa gadaan xayeysiin si ay kugu soo diraan. aababka social mediaha, facebooka, twitterka, whatsappka, google, gmailka, kulligood waa lacag la-aan. haddiiba ay free yihiin siyaabo kale ayaad u bixinaysaa, wax uunbaad ku bedelanaysaa
wixii aad bilaashka ku heshay. taas waa arrin sugan. mar kasta oo aad soo dejisata app si appkaagu uu u shaqeeyo waa inaad ogolaataa oo aad tidhaahdaa accept waxyaaba badan inaad accept tidhahda. waxyaabahan marka aad accept dhehaysid waxaa ka mid ah inay isticmaalaan teleefonkaaga microfonkiisa, cameradiisa, locationka ama meesha markaa aad ku sugan tahay, dadka contactiska kuu ah, sawirada teleefonka kugu jira, emailkaaga, xataa text messagekaaga, dadkaad wada hadlaysaan teleefonka waxaad ku wada hadlaysaan, kullibaa waxaad u ogolaanaysaa in ay isticmaali karaan. ogolaansho ayay kaa heleen inta aadan aabka soo dejisan. marka iyagu sharci ay jebinayaan ma laho, markii horeba wuxuu waa kuu free, wayna kaa heleen ogolaansho. facebook hadda for example wuxuu og yahay meeshaad ka shaqaysid, dadka adiga eheladaada ah ama qaraabada ama asxaabtaada ah, xataa waxay og yihiin aruurtaada magacyadooda iyo naaneysyadooda.